maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa markii ugu horeysay xanibaadda ama liiska shakhsiyaadka ay doonayaan ka saaray afhayeenkii hore ee Al-Shabaab Sheikh Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur iyadoo ay jiraan warar sheegaya inuu wada hadal kula jiro dawladda Soomaaliya si uu kaga baxo Al-Shabaab. war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in liiska dadka la doonaya laga saaray Abu Mansuur oo ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed. Mr. Roobow oo ku jira da'da kontomaad waxa uu ka mid yahay shakhsiyaad khibrad dheer u leh Al-Shabaab waxaana horey ugu safray dalka Afghanistan isagoo ka soo muuqday tababar ay la qaadanayeen saraakiil ka tirsan Al-Qaacida oo qiyaas ahaan sanadkii 2010 ah kadib markii uu wax ku bartay dalka Suudaan. Al-Shabaab ayaa sanadkan lagu sheegay inay yihiin kooxaha ka dhisan Afrika kuwa ugu khatarta badan maadaama dilal badan ay geysteen sanadkii 2016 in ka badan 4200 oo ruux ayaa la sheegay in ay dileen Al-Shabaab sida ay shaacisay hay'ad daraasaad samaysay oo laga leeyahay qaaradda Afrika fadhigeedana uu yahay dalka Mareykanka. Abu Mansuur Roobow ayaa tan sanadkii 2008 waxa uu ka mid ahaa dadka sida weyn Mareykanka u doonayo waxaana madaxiisa la duldhigay lacag gaaraysa $5 milyan. Koonfur Galbeed waxay soo dhaweysay go'aanka dawladda Mareykanka ee ka qaadatay Abu Mansuur Roobow waxaana la ogeyn tallaabada xigta uu qaadi doono Abu Mansuur. waxaa la qiyaasayaa inuu hogaaminayo in ka badan 700 oo askari isagoo la sheegay inuu ku sugan yahay deegaan ka tirsan Koonfur Galbeed sida saraakiil laga soo xigtay. dhinaca kale ku dhawaad 4 sano oo shaqaalaha hay'adda MSF Spain ay ka maqnaayeen dalka Soomaaliya ayaa warbixin hay'adda ay soo saartay waxa lagu sheegay in shaqaalaha hay'adda ay dib kaga shaqo bilaabeen gobolka Mudug gaar ahaan isbitaalka gobolkaasi. deegaanada Puntland ayaa waxa hay'adda ay sheegtay inay ka wadaan ololaha lagu tallaalayo carruurta isla markaana looga hortagayo jadeecada iyo cudurrada kale ee carruurta asiiba inta badan. hay'adda ayaa muddo 4 sano ah waxay ka maqnayd Soomaaliya kadib markii ay ka cabatay waxyeello loo geystay qaar ka mid ah shaqaalaha hay'adda oo caawinaad kala duwan ka sameynaya gobolada dalka Soomaaliya.